السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي كسو دبادا مركل مقال عصب وانيغو عبد الرشيد هبرابي مقالك waxaan kugu soo gudbin doonaa arrimo laga maarmaan ah oo loo baahan yahay inaad ogaato inta aadan guursan ka hor inta aan u guda galin ka hor muuqaalka fadlan hadaad ku cusub tahay subscribe saar mahadsanid guursan ilaa aad ka garato macnaha nolosha guursan ilaa aad ka garato macnaha guurka guursan ilaa aad barto sida aad u ilaalin lahayd xuquuqda xaaskaaga guursan ilaa aad hesho cidii aad la noolaan lahayd markaad dhibaataysan tahay iyo markaad faraxsan tahayba guursan ilaa aad barato mas'uuliyadda ku saaran guursan ilaa aad heshid deegaan muslim ah oo aad ku korisid carruurtaada guursan ilaa ay noqoto aakhirada ka hor adduunyadaada guursan ilaa aad ka barato xuquuqda xaaskaada ay kugu leedahay ma aha alaab guriga ku taalo oo guriga ku qurxinaysa mana aha shaqaale guriga ku nadiifinaysa balse waa qayb ka mid ah noloshaada guursan ilaa aad ogaato inaad tahay kudaysho wacan oo ay kugu daydaan ubadkaaga suurtagal ma aha inaad carruurtaada ka waanisid arrin aad adiga faraha kula jirto guursan ilaa aad ogaatid inaad tahay qof naxariis badan guursan ilaa aad ogaatid inaad aabba noqon kartid mana aha inaad nin tahay kaliya intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa axbaabi inta aan ku kulmayno muuqaalka xiga waa anigoo cabdirashiid bilaab oo idin leh sidaa iyo amaana allah